ceebta waxaa dareema ruuxii damiir la oo jirkiisu uu damqanayo laakiin siriiglaawuhu xanuunkeeda ma dareemo tusaale ka dhigo wadciga jira dhacdooyinka taariikhda madow galay iyo milgaha xilka qaran ee sidii hadiyad gaar lagu siiyey awlaha googatay xilku ma ahan wax hanti ahaan uu shaqsi u yeelan karo mana ahan shay hadiyad ahaan la iskugu hibayn karo ee waa meerto ay u siman yihiin muwaadiniinta shuruudihiisa buuxiyey taasi waa mid haatan naga maqan inaan fahanno si loo helo shaqsi saxa oo si hufan u gudan kara waajibaadka hawl qaran dulucda warbixintan waa sida ay isku moogyihiin xaaladda dalku uu ku jiro iyo maxamed abuukar islow ducaale oo haya xilka wasaaradda amniga qaranka Soomaaliya oo kursiga ku fadhiya asaga oo goobjoog ka noqday dhacdooyin xasuus murugo la reebay oo ka mid ahaa xasuuqii 14 Oktoobar sanadkii 2017 ka dhacay magaalada Muqdisho marka aanu mid u dul istaagno dhacdooyinka Muqdisho oo kaliya ka dhacay 2017 iyo 2018 wasiir maxamed abuukar islow ducaale waxa uu noqonayaa shaqsiga uu hogaamin xumaa ee soo mara wasaaradda amniga qaranka Soomaaliya oo mas'uuliyad ay ka saaran tahay nabadgelyada nafta iyo hantida muwaadiniinta Soomaaliyeed xasuuso weeraradii gaadiidka loo adeegsaday ee kala ahaa 14 Oktoobar hotel Naasab Lootu hotel Dayax iyo kuwa kale oo dadka lagu dilay boqolaal ay gaarayaan iska horimaadyo ciidan iyo boqolaal qof oo sababsaday dilal qorsheysan oo ka dhacay magaalada Muqdisho dhacdooyinkaas wasiir islow waxa uu kaga falceliyay shirar jaraa'id oo ku dulqabtay dhiigga muwaadiniinta oo jidadka waran asaga oo ku labisan tuutaha ciidanka ama suudka lagu xaragoodo wasiir islow guuldarooyinka dhanka amniga qaranka ee uu hesha u noqday waxa u dheer inuu noqday gaashaan bira oo siyaasadaha gurcan ay iska xijiyaan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxaana loo adeegsaday fulinta amar lagu mamnuucay shirarka siyaasadeed asaga oo ka soo dhex muuqday weerarkii dhimashada lahaa ee dhamaadkii 2017 lagu qaaday guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame sida afkiisa uu ka qiranayo wasiir islow intaan sugaysay waqtiga dheeraa waxaan leenahay nagaraal ahaada wiilashiinoo wax ku dheelanahay saalidiinna ka bixinayna masha Allah waa faahin ah gudoomiye aqoonsi kara oo dhaafaa duulaahi raahdo waxaan leeyahay dhammaanna walaalkeena wixii gaaray waa ha cafiyo wixii kalena gadaal loo dhigi doono meel kale iyo goob kale loo xidhi doono sidoo kale qayb ayuu ka qaatay tuuristii maxamed sheekh cismaan jawaari oo xilka looga qaaday abaabul ka yimid dhanka ra'iisul wasaare Khayre wasiir islow inta xilka uu hayay wax qabadkiisa waxa ka mid ahaa in si xushmad darro uu shaqada kaga eriyay laba afayeen oo wasaaradda amniga qaranka soo maray oo kala ahaa Sayid Axmed Carab iyo Cabdi Casiis Xildhibaan kuwa oo shaqada laga cayriyay kadib markii ay dhaliileen habdhaqanka laamaha ammaanka Soomaaliya iyo in ay jiraan saraakiil dawladda ka tirsan oo al-shabaab u fududeeya weerarada ay ka fuliyaan magaalada Muqdisho jidadka oo muddo xirna qaarkoodna ay noqdeen meel maritaanka ka caagan shacabkuna ay ku cadibnaayeen xaaladda xukuumaddu ay xamar ku soo rogtay ayaa 7 Juulaay rag hubaysan oo wata gaadiid qaraxyo laga soo buuxiyay waxa ay galeen xaruntii wasaaradda amniga qaranka ee uu ku shaqeynayay wasiir maxamed abuukar islow ducaale halkaasi waxa ka bidhaamay shaki ah in wada shaqeyn ay ka dhaxayso al-shabaab iyo laamaha ammaanka xilligaas shacabka Soomaaliyeed waxa ay sugayeen in xilka uu iska casilo wasiir maxamed abuukar islow ducaale maadaama shacabka loo diiday isticmaalka wadooyinka magaalada Muqdisho shabaabna loo ogolaaday in gaadiid qaraxyo ah ay la gudbaan xarumaha dawladda ugu muhiimsan sidoo kale koox hubaysan oo wadata gaadiid qaraxyo laga soo buuxiyay ayaa weerar ku qaaday afaafka hore ee madaxtooyada Soomaaliya shakiga shacabka Soomaaliyeed ee ku aadan in dawladdu ay fududeyso weerarada shabaabna waa uu sii xoogaystay wana filashadii labaad ee la sugayo inuu iscasilo wasiir maxamed abuukar islow ducaale taas bedelkeeda waxa warbaahinta laga arkay wasiirka amniga Soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale oo bogaadinaya caqiidada ay aaminsanaayeen shabaabkii shacabka iyo shaqaalaha dawladda ku laayay goobaha ay weerareen ee ka agdhow madaxtooyada Soomaaliya nimanka shabaab oo nabadiidka ah waa dad Soomaaliyeed waa dad midabkeeno kala leh waa dad muslim ah waa dad anagoo kala ah marka anaga nagu dhex jiraan wax meelaha ka hadlaya waxa aaminsanay anaga ayna yihiin jidadka la xiraayo marka jidadka la dabcin arintan dhacday sabtiga marka nabadiidka mar walba waxay isku dayaan in wax kasta ay u saarshaan shacabka wasiir maxamed abuukar islow ducaale macallin weyn oo way jooga ayuu ka noqday
muqdisho oo dadkii xililka uu hayay maydkooda uu wadooyinka gagan yahay ka qayb qaadashada qalalaasa siyaasadeed oo dalka qalqal geliyay sida daraadeed bal isweydiiyay sababta wasiirka amniga uu xilka ugu dhagan yahay asagoo xambaarsaday guuldarooyin ka muuqda ayna xusid mudan tahay in xilka qaadis lagu sameeyay mas'uuliyiin hawl gudashadooda ay muuqatay muxuuse kaga dugan yahay cabdikariin xuseen guuleed oo xilka wasaaradda amniga qaranka iska casilay 24 May sanadkii 2014 xilligaas oo weerar lagu qaaday xaruntii baarlamaankii sagaalaad sanad iyo barwaan aragnay waxay dhacdooyin amni oo xanuun badan ka dhacay muqdisho oo kaliya waa yaqiin inaadan ahayn sida adigu ay ismoodid laakiin aad tahay sida dadku ay ku moodaan dib u milicso muwaadin wixii dhacay isna weydii su'aal ah wasiir islow kursiga ma waa hagaag arintaasi kay gudubno warbixinta sida tooska u abaaraysay wax qabad xumida soo wajahday wasaaradda amniga dawladda Soomaaliya oo hogaamiyo maxamed abuukar islow ducaale